magaalada Hargeysa shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa faahfaahin ka bixisay markii ugu horeysay hab cusub oo loo adeegsanayo farsamada casriga ah ayna u suurtagelisay sariflayaasha lacagta in ay mid walba u furto hab uu u adeegsado si hawshu ay ugu fududaato. wariyaha BBC ee magaalada Hargeysa Axmed Siciid oo warbixintan ka soo diray ayaa ku bilaabaya gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariim Maxamed Iid oo sharxaya habkan cusub. shirkadda Telesom oo mar walbaba ku dadaalaysa inay u fududayso una samayso waqti ilaalin kharash yareyn iyo hubnaan shaqo macaamiisheeda kala gedisan mar walba waxa ay soo kordhinaysaa adeegyo cusub sida ka wada warqabtaan technology-gu wuxuu u baahan yahay saaxadii uu ku shaqayn lahaa waxa adduunka lagu kala tagay shirkadaha waaweyn ee Mareykanku maanta technology-ga ayaga ayaa hogaamiya ama Amazon ha noqdo Microsoft Google Facebook maxaan ku dhahdaa Uber taas ayaa ilaahay mahadiis xukuumadeena iyo dastuurkeenuna ay Somaliland u fududeeyeen in ganacsatadu iyo sharaa'iciyadu ay ku soo bandhigi karaan technology walbaba taas ayaa noo sahashay noo sameeyay. marka Cabdikariim habkan imika sarifla kastaaba uu account-kii ka dhex samaysan karo telefoonka ee uu dabadeetana sidee buu yahay markaasi in habkaasi ma isaga la sariflihii shirkadii baa la yaale Axmedow sarifluhu isaga iska leh shirkadu tanziilaad u sameynaysa ama hawl fududayn Central Bank Somaliland isaga ayaa dejinaya shuruucihii marka u horeyso in qofka sariflaha ruqsad uu ka haystaa marka labaad sarifka waxa jaangoyntiisa yeelanaya oo maalin walbaba soo saaraya waa Central Bank Somaliland annaku technology-gaas maan u abuurnay in iyaga iyo bulshada aan isku xidhno waxa kale oo noo abuurnay jawi ay ku wada shaqayn karaan Central Bank Somaliland iyo sariflayaashu qofku waxaan u sameynay short code ayaa marka hore la gelayaa sidii nambarada caadiga ahayd ee lagu geli jiray dabadeed sariflo walba number buu leeyahay numberkaasi ayuu ku sheegayaa lacagtaad gelinaysaa sidaasaad uga dhex sariftaa lacagtiisina way taala maaha lacag hawa ma lacagtiisu waa lacag u taala qofku waxa weeyaan runtii technology-gu wuxuu u sahlayaa isaga oo maaragtay wixii account-kiisa ugu jira inuu xil walbaba sadgaraysan karo ama uu sarifka qiimihiisii maaragtay uu gashan karo ka bacdi dabadeed uu dadka halka macaamilada ay ku dhex mari karaan isagoo hurda isagoo safar ku jira isagoo maxaan ku dhahdaa xaruntiisa ama goobtiisa shaqo jooga intaba. Cabdikariim waxaan doonayaa ku weydiiyo wadalkiisa bariyahan dambeyntii ay socotay arrintan qiimo dhac baa ku yimid shilka Somaliland waa tii shilka Soomaaliya la xoojiyay xukuumaddu intii joojiya saadka iyo dahabkaba wixii ka $100 iyo wixii ka hooseeyaba waa joojiseen iyo isku sarifkii marka idinku shughul kuma leedin Soomaha oo in sarifkii shirkadu shughul kuma le sariflayaashu baad imaka u sameeyeen habkan nacam waa khidmada nu sameeyay sariflayaasha anagu wax allaale waxaan shughul ku leenahay ma jiro Axmed oo technology-gu runtii wuxuu soo kordhiyaa fawaa'id aad iyo aad fara badan mobilka technology-giisa markii hore xagga caafimaadka xagga beeraha xagga xoolaha nool xagga maxaan ku dhahdaa waxbarashada xagga dhaqaaqa maaliyadeed ayaa uu mobilku u sahli jiray bulshooyinku inay uga faa'iideystaan waxa runtii guul iyo sharaf iyo magac ummadda u soo hoysay maanta in adeegana uu yahay kii ugu horeeyay ee dunida laga sameeyo exchange waxa la yiraahdo adeegaasi waa mid annagu halkan maxalli ahaan shirkad ahaan ku sameynay kaas wuxuu Cabdikariim Maxamed Iid gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom haddaba sariflayaasha laftooda iyo suuqa bartamaha ee magaalada Hargeysa waxa aan weydiiyay bal dareenkooda habkan cusub ee shirkaddu ay u soo kordhisay Telesom ana Yuusuf Awil Cabdiye oo sarifla fadhiya Hargeysa waxaana koon ka furtay Telesomta qof isagoo gurigiisa jooga ayuu lacagta ii soo diraya mobilkayga in direct ugu bedelayay oo kaashkiina isna u helaya adeegii isagoo halkiisa iska fadhiya anna waxaan helaya wixii uu iga iibsanayay ee uu lacagtu ii soo diray baan helaya isna kaashkii uu doonayay buu helaya saas uu adeegu aad iyo aad marka markii hore waxa ka cabanayeen in shirkaduhu kale mesela iyagii ay sarifkii qaateen taas meesha ma ka baxday meesha way ka baxday annaga inagu wareejiyeen dadweynaha kale iyaguna kala bedelanaya macaamiishan doonaya balse u arkaan habkan mobilka in ay sarifka ay sariflayaashii ay ugu bedelayaan ay mobilkooda ugu shubayaan kole waa si wanaagsan markaa si wanaagsan baa loo bedelayaa inkastoo anagu aan wali aanu la qabsan karin laanahay tii hore aanu garanayno haddana maasha Allah anagu guriyayga iska joognaa baa sarifkiina loo bedelaya waa naloo soo diraya si wanaagsan baan marka sarif la leedahay qaar baad la leedahay macaamiil inankan imika waa aniga Yuusuf macaamiishaydii baan Axmed Siciid Cige BBC Hargeysa.